waxaan rabaa ugu horeyn qodobka ugu horeeya inaan halkan uga tacsiyeeyo dhammaan dadkii ku dhintay magaalada Baydhabo gobolka Baay xarunta ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ugu horeeyo Allah u naxariisto adeerkay Cabdishakuur Yacquub dhammaanteen samir iyo iimaan Allah naga siiyo intii maaragtay shaqaaqadaas ku dhimatay waxaan kaloo rabaa in aan maaragtay Allah uga bariyo inuu caafimaad degdeg ah uu siiyo dadka maaragtay ku waxyeeloobay shaqaaqooyinkaas ka dhacay magaalada Baydhabo sidoo kale waxaan halkan ambaareyn uga soo jeedinayaa cid allaale cidii ku lug lahayd dhibaatooyinkii loo geystay reer Koonfur Galbeed gaar ahaan dadka reer Baydhabo dhibaatooyinkaas oo isugu jiray dil dhaawac caburin xarig aad iyo aad ay arintaas u ambaareynayna waxaana degdeg u codsanaynaa in la hor keeno cadaaladda waayo ma jiro cid sharciga ka weyn anigoo ku hadlayo magacayga ka xildhibaan ahaan iyo dhammaan xildhibaanada ka soo jeeda oo laga soo doortay Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ugu sareeyo uguna horeeyo gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan reer Koonfur Galbeed halkan aan uga cadeeyo una xaqiijiyo inaan diyaar u nahay in aan u gudano waajibaadka iyo mas'uuliyadda aadna saarteen oo ah inaan dadkeena aan u adeegno dalkeena aan u adeegno in aan u gudan doono waajibaadkeena si buuxda aan u istaagi doono hagidda iyo jihaynta masiirka siyaasadeed si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah kana wada shaqeyno sidii aan uga hortagi lahayn jujuubka iyo afgambiga lagu wada reer Koonfur Galbeed iyo damca laga leeyahay in loo magacaabo qof reer Koonfur Galbeed waxaan ambaareynayaa ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Baydhabo AMISOM shaqadeeda waxa ay nabad ilaalin waxa muuqato oo ku ambaareynayna inay isu bedeshay maalmaha la soo dhaafay ku milanka siyaasadda guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan midda Koonfur Galbeed taas oo ay ku faragelisay kuna caburiday dadkii u banaan baxaya aragtidooda inay cabiraan taas oo ay xarig iyo afduub ay ugu geysatay musharaxa muwaadinka Mukhtaar Roobow Cali waxaan baaq u dirayaa oo aan rabaa inaan maaragtay baaq iyo talo aan u diro madaxweynaha ku meel gaarka ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Shariif Cabduqaadir Shariif Sheekuna labadiisa ku xigay guddiga doorashooyinka in ayaga inay ka muuqato in aysan diyaar u ahayn in ay hogaamin dhab ahna dalkaas ku hogaamiyaan waliba ay hogaamiyaan doorashooyin si loo helo doorasho xor ah xalaal ah ayagoo u muuqdo in ay cid gaar ah u shaqeynayaan arintaas waxaan leeyahay Cabduqaadir Shariif Sheekuna iyo labadiisa ku xigeen guddiga doorashooyinka waxaan leeyahay taariikhda ayaa waqtiga qori doonta waana la idin la xisaabtami doonaa mar alla markii ay haboonaato waxaan halkan baaq uga dirayaa golaha odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo runtii ah golo u taagan jiritaanka maslaxadda nabadda reer Koonfur Galbeed waxaan leeyahay sida aad hore u wadeen u sii adkeeya in aad ka shaqeysaan nabadeynta waxaan si wada jir ah baaq ugu dirayaa shacabka reer Koonfur Galbeed in ay ku dadaalaan xasiloonida ka shaqeynta dadkooda iyo deegaankooda ayna ra'yigooda iyo dareenkooda siday u cabirayeen si nabad ay u cabiraan aysan noqonin mid baajisa ama joojisa hanjabaadaha iyo caburinta lagu hayo sidii ay dareenkooda u muujin jireen waxaan halkan uga cadeynayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed dadka maaragtay mas'uuliyiinta Soomaalida in aan iska casilay xilkii wasiirnimo ee aan u hayay dawladda Soomaaliya waxaan rabaa inaan marka ugu horeeyo aan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda qaranka Soomaaliyeed oo ugu horeeyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre muddadii koobneed aan isla shaqeynaynay iyo sidii wanaagsaneyd aan iskula shaqeynay aad iyo aad ayaan maaragtay uga mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan halkan idinkugu cadeeyo sababaha keentay in aan iska casilo xilka wasiirnimo
waxyaabaha ama sababaha dhaliya inaan xilka wasiirnimo iska casilo waxaa ugu horeeya koow maamulkii iyo dowladdii aan ka tirsanaay oo aynan jirin meel ay ku go-aan gaareen in la farageliyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo guud ahaan maamulada kale annaga aan ka tirsannahay dowladdaas meel lagu go-aansaday ma ay jirin in la farageliyo lana arburiyo lana afduubo doorashooyinkeeda labo ma aysan jirin meel maamulkaas uu kaga go-aan gaaray in doorashooyinka laga reebo muwaadin Mukhtaar Roobow Cali weliba la soo xiro lana soo afduubo saddex ma aysan jirin meel looga go-aan gaaray in ma aysan jirin meel looga go-aan gaaray in la diido in lala tashto mas-uuliyiinta xildhibaanada wasiirada guddoomiyaha baarlamaanka lagalana tashto aayaha iyo hagidda siyaasadda deegaanka iyo dadka reer koonfur galbeed taas oo ay diideen maamulkii iyo dowladdii iyo xukuumaddii aan ka tirsanaa ayadoo ay muuqato in la hareer maraayo ku dhaqanka dastuurka shuruucda dalka u degsan iyo xeerarka dalka u yaala haddaba waxaan go-aansaday inaan iska casilo xilkan maanta ay taariikhdu 16 December sanadka 2018 waxaana u go-aansaday in aan markhaati kasii ahaanin dulmiga iyo dhibaatooyinka lagu hayo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed waxaan u ballan qaadayaa sidii aan horey ugu ballan qaaday dadka Soomaaliyeed in aan ugu shaqeeyo ka wakiil ahaan xildhibaannimada baarlamaanka federaalka Soomaaliya in aan ugu shaqeeyo ayaan u ballan qaadayaa mahadsanidin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh